saaxiibayaal hadda muuqaalkan waa muuqaalka saddexaad kulley haddaadan labada muuqaale hore arag fadlan soo daawo waxaad ka heli doontaa beedka suuqaas. Hadda muuqaalkan waxaan kugu tusi doonaa sida application-ka looga dhex gato alaab, ama haddii aad tahay qofkii iibinayay ama qofkii iibsanayay aad u kala fahmi lahayd application-ka. Marka hadda waad aragtaa oo chat iyo category iyo buy ayaa ku soo baxaysa. hadda markaad chat daahdo waa meesha aad kala xiriiri doonto qofka mataqaanaa aad uga baahan tahay alaabta. marka halkan waa meesha aad ka wada sheekaysan doontiin intaada alaabta aad ka iibsanay. sidoo kale meeshan hadda calaamadda aan ku saaray waa meesha haddii aad tahay iibiye qofkan kale ee wax iibinaya aad uga share gareyn lahayd alaabtaada si uu mataqaanaa u arko waxa aad adigu iibinayso. kadib saaxiib waxaa ku tusi doonaa hadda aad category ayaa taabanaysaa. product-kan haddii aad ka heshay wuxuu kuu soo geli doonaa meesha ay ku qoran tahay hadda maadaama Soomaali yahay gaariga. marka halkan waxaad ka arki doontaa product-gii calaamadda category soo saartay oo halkan ku soo galay. marka meeshan kale oo hal amda marka ka dhigto waxaad dhihi u gudbi bixin. halkan waa qaabka aad lacagta ku bixinaysay. meesha kale markaad magacaaga gelisay meeshan labaad waxaad gelinaysaa ciwaankaaga oo ah magaalada aad joogto meesha ka soo joogto. sidoo kale meeshan waa magaalada oo jigjigaada ka dhigay. gobolka waxaad ka dhigaysaa Soomaali haddaad Soomaali deegaanka Soomaaliya joogto. halkanna waxaad gelinaysaa lambarkaaga. markaad lambarkaaga gelisay waxaad dooran doontaa sii wad lacag bixinta. haddaba waxaa ku soo baxaysa habka lacag bixitaanka oo ay ku jirto e-bir, Telebir iyo bangi commercial. marka hadda anigu bangi commercial ayaan dooranayaa waxaana ii soo bixi doonta information-ka lacagta aan ku soo diri doono. marka aan lacagta saaxiib soo bixiyo ee akoon bangiga aan ku soo diro dalbo ayaan taaban doonaa. sidaas ayaa aagkii ku helaya. laakiin ogow intii aad qofka mataqaanaa aad waxba ka dalbanin waa in aad marka hore horta aad wada hadashaan haddii aad qiimaha ku qanacsan tahay. marka hadda anigu agabkan kaliya waa inagu tusayaa laakiin waxaan rabay inaan tuso bes. marka meeshan yar hadda inii calaamadeynayo waa meesha notification-ka ee message-ka oo ah message haddaan diray oo mataqaanaa qof aan order uga baahnaa uu ii soo jawaabay iyo haddii qof orderkayga ka soo helay si uu mataqaanaa u ogaado uu igala soo hadli doono. marka meesha message-ka waa meesha aan kala socon doono xogta in aniga wax la iga soo codsaday ama inaan dalab anigu aan rabay la ii soo jawaabay si qiimaha uga wada hadalo. marka meeshaas iibiye iyo iibsado labadooduba way anfacaysaa. marka halkaana waad iska tirtiri kartaa oo dhib iyada ma leh haddii aadan lacag bixitaan iyo waxba aadan samayn. sidoo kale meesha search-da waxaad ku qori kartaa waxaad u baahan tahay oo laba xaraf. haddaan mobile u baahanahay MO bes aan qori. haddaan ET qoro waxyaalaha ET-da ayaa ii soo baxaysa. ogowna calaamadda bro ku qoran tahay waa dukaamada leh shati ganacsiga, waa kuwa shati ganacsiga laga dhigay. marka hadda haddii aan ku tuso hadda dashboard ku qoran tahay. dashboard waa meesha aad kala socon doonti in agabkaaga uu soconayo uu suuqin fiican leeyahay. sidoo kale meeshan dalabka waa meesha aad ku wayn kartid in wax laga soo dalbaday fariimaha qofku markuu adigu wax ka soo dalbado. sidoo kale meeshan alaabaha hore waa inii soo sheegay waa meesha aad kala socon kartid alaabtaada in interviews ay heshay. sidoo kale saaxiib markaad inta iyada aragto meeshan hadda ay ku qoran tahay dalbo alaab waa meesha aad ka dalbadooti alaab aad u baahan tahay. tusaale ahaan meeshan option-kan waxaa loogu talagalay qofka application-kan isticmaalaya hadduu yahay iibiye ama iibsade shay ka maqan inuu halkan ka dalbo si ay dadku wada arkaan. tusaale ahaan qof waaba mobile celisa iska iibinayso ma dukaamada dhan ee meeshan stoorada ka wada furan dhan fariinta way ugu tagaysaa. marka hadda anigu mobile ee 15 aan u baahanahay raamkiisii wixiisii oo dhan markaan geliyo xogtiisii sidoo kale sawirka mobile-ka aan geliyo jigjigaan geliyo submit ayaan dhahayaa. haddaba meeshan ay ku qoran tahay dalabkayga waa meesha aan ka arki doono fariimaha in la iiga soo jawaabay oo dadkan kale ee isla meeshan wax ku dhex ganacsanaya in fariintayda ay arkeen si ay iiga iibiyaan. anigoo iibsaday halkaas waxay ka helayaa chance ah inaan anigii waxna ku dhex iibiyo waxna ka dhex iibsado. marka meeshaas waa meesha ugu fiican iyada waxyaalaha ugu fiican ee ka mid ah. marka labada meel iyadana waa labada option iyaga waxa lagaga xidhay waxaa lagaga baahanyay shati lease ganacsiga. marka kaliya application-kan waxaa lagu ogolyahay 5 product bes inaad soo geliso haddii una ku ahayn verified oo leasing ganacsiga aan laga qaadin. marka haddaad tahay iibiye waxaa qasaba shati ganacsigaaga in aad shirkadda u dirto kadib lagu soo aqbalo. waad mahadsantiin.